suuban maad dirir midda xigtaa waxaad bal fikirkaaga naga siisaa sida aad u aragto wadahadaladii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar marka aad fiiriso Jubbaland oo kale wadahadaladaasi way qaateen midda kalena waxaa jirtay aqoonsi ku meel gaar ah oo dowladdu siisay inkastoo markii dambe ay diideen haddana waxaa jiray warar kale oo sheegay inay ka soo horjeesteen shirka loogu baaqay Axmed Madoobe sitaasi la mid ahna waxay ka soo horjeesteen go'aanadii ka soo baxay baarlamaanka ee lagu meelmariyay xeerarkii lagu kabayay xeerarka doorashooyinka run ahaantii Nasriinay maxaa la dhahaa waxyaabaha badan oo aad weydiisay waxaan rabaa intaan u guda gelin inaan wax yar bayaamiyo run ahaantii ummadda haddii waxyaabaha shakhsiyaad waxa ay rabaan mar walba in laga hadlo maaha waa mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada shacabkooda waxa ay rabaan in la tixgeliyo shakhsiyaadka madaxda ah wixii ku saabsan dowladda federaalka waxa maxaa la dhahaa matala xubnaha baarlamaanka golaha aqalka maxaa la dhahaa sare haddii dowlad goboleedka ay tahay shacabkana waxa matala golaha shacabka marka horta run ahaantii wixii dowladda federaalka ay samaynayso in laga hor imaado iyo in maxaa la dhahaa waa inay horta ay dhamaataa arrintii oo ilaa aqalka sare ay kasoo dhamaataa markaas kadib ayaa dowlad goboleedka madaxdooda ay ka hadli kartaa waa ayaan dara marka in shakhsiyaad mar walba ay ummadda hor istaagayaan haddana madax u ah oo ummadii inay u adeegaan loo idmaday marka waxaan rabaa inaan ka hadlo annaga haddaan nahay Jubbaland run ahaantii waxa dhibaatada loo geysanayo waa shacabka Jubbaland ma raba aniga maamulada kale inaan arrimahooda galo waxa ay shacabka Jubbaland ay diideen waxay tahay Axmed Madoobe madaxweyne u yahay dowladda federaalka iyo internationalka oo markii horena ku raacay oo dadkii maxaa la dhahaa u sameeyay inay ogolaadeen oo loo shaqeynayo ummadii balse ayaan dara waxaa noqotay waxaa samaysmay in Axmed loo ogolaado sababaha lagu ogolaaday iyo sida loo marayna lama qeexin oo run ahaantii waxay tahay markii wax aqoonsi la siinayo waxay ahayd dowladda federaalka inay markii horeba diiday baarlamaankii samaysmay oo baarlamaankii hore oo jira oo weli maxaa la dhahaa haystay aqoonsiga dhabta ah maadaama aan baarlamaanka wax bedelay imaanin haddana ay aqoonsiga dowladii xukuumadii markaa jirtay oo Jubbaland ee iyadana aqoonsiga haysatay sidaa la adligeed waxay dowladii aqoonsi siisay Axmed Madoobe marka ayaan darada jirto waxay tahay dowladda ma waxay aqoonsi siisay maamulkii maxaa la dhahaa baarlamaankii hore ee dowlad goboleedka iyo Axmed oo 2 sano ah mise waxay aqoonsi siisay baarlamaanka cusub oo ay awal ku tilmaameen inuu xaq darro yahay marka run ahaantii waxyaabaha waxay dhahdaa Soomaalida wax alifka ka qaldama albaqra kuma saxmo sidaa la adligeed markii hore ayay dowladda si xaq darro ah ugu ogolaatay inuu Axmed diido ama uu diidmo ka muujiyana way imaanaysaa ama maamulka Axmed ay diidmo ka muujiyaan heshiiska dowlad goboleedka iyo dowladda arrintan muqdishona gobolka Banaadir matalaada uu helayna waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijiyo waa dastuuri inuu gobolka Banaadir matalaad haysto oo waxay ku taalaa dastuurka qodob dastuurka ku yaala way markii la fiirinayo aqalka sare ayaa waxay ahayd markii la dhisayay in lagu saleeyo 18 gobol gobolka ummadda dalka Soomaaliya 18 gobol oo gobol walba uu helayo 3 xubnood dowladda Xasan Sheekh ayaana sameeynin oo khaladay in ay alashaan ay gobolka Banaadir xuquuqdii matalaadiisii ay gobol kala qaataan siday ku dhacdayba oo maxaa la ma qeexi karno laakiin waxaa muuqatay ama barashar u imaaday ha ahaato dowladda ama siday doontaba ha ku dhacday waxay ahayd in ay gobolka Banaadir matalaad helaan sida gobolada kale oo 18 gobol oo dowladda Maxamed Siyaad Barre iyadoo lagu qeexayo gobol walba loo siiyay matalaadiisa ayaan dara ma dhicin marka inuu gobolka Banaadir matalaadiisii hadda la dhaho dowlad goboleedkii baa diiday horta shaqo qusayso dowlad goboleedka ma aha gobolka Banaadir sida gobolada kale oo Soomaaliya xuquuq u leeyihiin buu xuquuq u leeyahay waa tahay maadaama shacabka hadda ay dan u tahay oo muddo xayiraad ay saarneed Jubbaland ma isleeyahay waxay tani qafiifin doontaa xayiraadii iyo isku socod la'aantii muddadaba ay ashtikada ka ahaayeen shacabka Jubbaland horta run ahaantii shacabka Jubbaland dhibaatada haysata ama cunaqabataynta haysata hadda ma soo bilaabanin waxay soo bilaabmatay 8 sano oo ay Madoobe u imaaday meesha iyadoo sidoo lagu keenay ee la socoto in dowladahan dariska ah Ethiopia iyo Kenya ay Axmed keeneen marka ayaa cunaqabataynta bilaabatay
dadka qaarkood in la dhibaateeyo bilaabatay dadkii bixi karo meesha isaga soo carari kara ay kasoo carareen degmooyinka dhan oo Jubbaland ka tirsan gobolada saddexda gobolba inta maamulka markaa uu joogay haddana sidoo kaleeto waxaa moodaa hadda markay heleen iftiin inay horumar gaari karaan in sidii haddana in lagu laabsiyo la rabo waa waxa aan ka dhiidhiyayno waa waxa aan intaasoo bilood aan u fadhiyay maxaa la dhahaa Doolow iyo Balaxaawo iyo Luuq u joogay haddana waxaan ku suganahay magaalada Xamar waxa aan raadinayno oo aan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u cadaynayno waxay tahay anaga sadbuursi ma rabno waxa gobolka Banaadir uu helay raali baan ka nahay waxa Puntland ay helaysa raali baan ka nahay waxa Galmudug helaysa raali baan ka nahay laakiin waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka beesha caalamka cid walba oo danaynaysa arrimaha Soomaaliya in xuquuqda Jubbaland aysan noqonin mar walba wax calaysan mar walba muran la geliyo oo inaysan dad xuquuq leh aysan u ekaadaan mar walba inay tahay waa ayaan daro waxaan codsanaynaa xuquuqda Jubbaland aysan marnaba ahaanin waxaada la geliyo oo shacabka Jubbaland ayahooda ay ka tashtaan waxayna magacaawdeen madaxweyne sida loola socdo oo intaasoo deegaana ayaan tagay marka maxaa la dhahaa waxaan rajaynaynaa in ay arrintaa hirgeli doonto waa tahay suuban maad dirir maadaama aad uga soo horjeedo siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe maxaad ku diidaysaan haddii Jubbaland ay ka qayb noqoto maamul goboleedyada dalka ka dhisan si doorashada dalka ay u noqoto mid gabi ahaanba ay u idil yihiin maamulada hadda ishtikada muujinayay oo Jubbaland ka mid ahayd run ahaantii annaga ishtaka maanan muujinin oo ishtaka ku saabsan arrimahan waxaad ka hadlaysaa soomaha arrimaha gobolka Banaadir ama dowladda doorashada xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland horta run ahaantii shacabka Jubbaland wax ay dowladda la dagaalsan yihiin ma jirto shacabka Jubbaland waxa ay leeyihiin xuquuqdeena asaasiga rabnaa annaga fiirin waxa la isku qaldayaa Axmed Madoobe iyo shacabka Jubbaland waxay diyaar u yihiin in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay la shaqeeyaan ay la qaybsadaan dhibaato walba oo shacabka Soomaaliyeed iyo horumar kasta ay la qaybsadaan marnaba naguma jirto annaga inaan ka hor imaano dowladda federaalka dhaliil hadday dowladda federaalka leedahay waa sheegaynaa sida dhaliisha hadda aan ku sheegayna oo inay xuquuqdeena duudsisay laakiin marnaba annaga dib u dhac iyo lagu haysasho aan ku dheganahay dowladda federaalka ma dhaci karto haddana diyaar ayaan waxaan u nahay si kasta oo loogu salaynayo oo doorashada ay u dhici karto ama loo sahli karo waxaana jeclaan lahayn sida aan sheegnay haddii xataa aanan one vote dhici karin xataa in ay dhacdo iyadoo dadban oo siyaabo kale laakiin mar walba inay degmooyinka la tago oo ay sida aniga sameeyo oo kale aniga waxaan tagay Luuq waxaan tagay Balaxaawo waxaan tagay Garbaharey waxaana weydiistay dadka codka 7 degmo oo maanta ilaa Kismaayo oo aan ka baxay marka waxaan doonaynaa waxay tahay oo mar walba aan ku loo fikirayna in degmooyinka ay tagaan oo dadka ay masiirkooda iyo qofka iyaga ay matalayaan uu ka imaado qofka ay dooranayaan uu ka imaado shacabka ay soo doortaan aysan mar danba ahaanin inay dad maxaa la dhahaa haystaan oo ay awoodii xildhibaanada soo baxay waxa lagu tartamayo awoodda xildhibaanada soo baxay inay shakhsiyaad ku tartamaan ma ahan waa inay ummadda loo celiyo awoodda oo ay shacabka ka soo baxaan qofka ay u rabaan inuu u matalo golaha baarlamaanka maadaama adigu aad ugu ololeyso shacabka Jubbaland muxuu yahay hankaaga siyaasadeed nasriinay mar badan baan ku sheegay aniga waxaan ahay oo sida xaqa ah oo sida xalaasha ah la igu doortay madaxweynaha Jubbaland run ahaantii waana ayaan daro in maxaa la dhahaa la iska indha tirayo maxaa yeelay aniga waxaan tagay si awoodda koowaad waxaa iskale shacabka haddii uu shacabka ku doortay oo shacabka uu kugu doortay inaad madax u noqoto waa in dowladda federaalka ay fududaysaa aniga waxaan tagay Garbaharey kowdii hore kacdoon baan ku imaanay mar walbana waa sheegaa dowladnimada sideedaba waa 3 nooc waa inuu qofka dhaxal ku imaadaa boqortooyo ay tahay waa inuu qofka la doortaa iyo inuu kacdoon dhacaa oo kacdoonka wax la isaga wareejiyaa annaga Jubbaland shacabkeeda haddaan nahay kacdoon baan ku imaanay kacdoonkan ku imaanay Kismaayo ka bilowday kacdoomadii kale degmooyinka kale ka dhacay baa wada xiriirnay waa isku tagnay waxaan ka tagay gobolka Gado magaalada madaxda Garbaharey waxaan tagay magaalada Balaxaawo degmada Balaxaawo waxaan tagay Luuq waxaan tagay maxaa la dhahaa Doolow intaba si fiican la iiga soo dhaweeyay kiina la iigu siiyay maxaa ku diiday marka Kismaayo inaad isweydiin intaan yar baan ku dhamaystirayaan tirada raaliya waxa ayaan dara ah waxa aan sameeyay waa taariikhi qori ma qaadanin qori kuma maxaa la xukuma raadinin waxa aan wax ku raadiyay waxay tahay inaan shacabka awood u celiyo inaan shacabka ku dhaho anaga iyo maamulka jira keebaad rabtaan si sharci ah oo maxaa la dhahaa ku salaysan dastuurka ayayna shacabkii iigu codeeyaan
ayna si xalaal ahna xor iyo xalaal ahna ee codkooda iisoo siiyeen waxa dhiman waa magaalada Kismaayo waxa aan rajaynayaa waxay tahay dawladda iyo internationalka iyo cid walba ku soo saarmaa Soomaaliya in Axmed lagu kala saaro magaalada Kismaayo sida aan aaminsanahay shacabka Kismaayo waxa waa dad la haysta ah oo inta ka dhibaatoonay waxa maanta ay maamulka ku sameeyay sideedana anaga Axmed mar walba ma ahan dhibaatada waxay tahay dawladda Kenya oo aan rabnaa in dib u eegid lagu suubiyo sida ay ku joogto maxaa la dhahaa dalka Soomaaliya waa tahay dawladda dhexe iyo Axmed Madoobe qudhiisa ma kala hadashay arinta ah in ay adigu shacabka ku doorteen ma rajaynaysaas inaad Kismaayo tagto si shacabka halkaasi aad ula kulanto oo aad kala hadasho arimaha aad doonayso run ahaantii Nasriinay wax walba markii ay wax cad yihiin oo aysan hoos ay waxa fiican banaanka aniga dawladda federaalka waxaan kala hadlaa media haddii aan meel ku arkano run ahaantii waa u sheegaa qoraal aan u qorno ma jirto because waxaana way cad tahay banaanka ay taala ma rabna inay wax ay hoosano waxaan rajaynayaa dawladda federaalka inay internationalka sidoo kale cid aanan maanta arrimahayga ka warqabin ma jirto waana u cadeeyay inaan Kismaayo tagayo waxaan sugayaa kaliya inta diyaaradaha ay ka furmayaan waxaan ku suganahay magaalada Xamar waxaan doolow ka imid 20 maalmood ka hor baan magaalada Xamar ku suganahay waxa aan sugayo waxay tahay inaan marka hore Garbaxaray tago kadibna waxaan tagayaa magaalada Kismaayo waana u cadeeyay cid walba waan u cadeeyay shacabka Soomaaliyeed baan u cadeeyay shacabka Jubbaland baan u cadeeyay waxaan tagayaa magaalada Kismaayo haday shacabka Axmed u soo baxaan oo asaga ay rabaan oo aniga idiyaan daanaaba tanaasuliyaan quraano todobadii degmo gada haysta baa hadana waxaan ku kalsoonahay inuu shacabkii Kismaayo soo baxayo oo aan leeyahay hadaan Kismaayo waayo Axmed waa u tanaasulaya waxa ayaan dara ah inuu Axmed ku dhaganaado asagoo haysta hal degmo ah inuu leeyahay waxaan xukumayaa maxaa la dhahaa Jubbaland anigoo haysta shacabkii gado idil iyo aaminsanna inaan haysto shacabka Afmadow iyo shacabka Kismaayo badankood baa waxaan leeyahay hadaan waayo labadaas waa tanaasulaya marka waxa ayaan daraa in lagu dhaganaado umadiyoon ku rabid inaad ku dhaganaato waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka iyo internationalka iyo umada Soomaaliyeedba in Kenya sida ay dalkeena ku joogto waa ceeb qaranimada Soomaaliyeed bay ceeb ku tahay dib u eegid lagu suubiyo haday Amisom mandate-keeda ay haysatana ay sida dhaqanka iyo sharciga u yaala iyo xeerarka u yaala Amisom ay ku dhaqantaa waxayna tahay in ay calashaan ay ilaaliso nabadda maxal ahaa maamulka ila joogto meesha ay joogto oo deegaanada ay ka joogto Soomaaliya ma aha in arrimaha Soomaaliya faraha la gasho oo ay ku samayso faragelin xoogan waxay ahayd Suuban Maadirir oo sheegtay in qaar kamid ah shacabka ku nool degmooyinka gobolka Gada ay u doorteen madaxweyne balse waxa ay tilmaamtay inay iyadu rajaynayso in ay Kismaayo tagto halkaasina ay kula hadasho shacabka ku nool magaalada Kismaayo iyagu ka qaybta maamulka dawlad goboleedka Jubbaland ee Axmed Madoobe uu hogaaminayo